waxaynu maanta ka waramaynaa baraha bulshada iyo qaabka u saameeyo bulshadeeni. waayadii hore aad bay u yareed bulshadeena Soomaaliyeed isticmaalka baraha bulshada, ama dadkii aqoon buuxda maysan u lahayn baraha bulshada waxa uu yahay, qaabka u shaqeeyo. haddana saa ay tahay casriga la joogo ama xilligan wixii uu sii casriyoobaya, yani marba waxaa soo baxaya fashion cusub oo design cusub, marba wixii wuxuu sii noqonaya wax lasii jeclaado, wuxuu sii noqonaya waxaan mataqaantaa lasii xiiseeya in badan. haddana saa ay tahay saamayntiisu way sii badanaysaa. idan marka waxani wuxuu noqday wax anagana saameeyo oo nafsadeena ama caafimaadkeena, maskaxda caafimaadkeena, jirka, qaabkaan u fikirayno, qaabkaan wax u baranayno, qaabkaan u cibaadaysanayno, qaabkaan bulshada ula dhaqmayno, even fikradaheena xitaa way saamaysaa, even diinteeni, dhaqankeena Soomaalinimo, yani waxaan wuu saameeyey. si xun bay noo saameysay negative. waxaas marka isla eegaynaa qaabkii inoo saameysay, waxa keenay iyo mataqaanta xalkii waxa uu noqonayo. aniga ahaan haddii aan fikirkeyga yara cabiro, baraha bulshada qaabkii inuu saameeya waxay tahay dee waayadii hore waxyaalo badan oon ceeb ahayn, waxyaalo badan oo ceeb ahaa maanta waa ceeb, yani ceeb ma ahan, waa iska caadi, waa iska entertainment waaye, fun waaye, wax lagu qoslo waaye, waxa waaye talent waaye. yani qof dhan wuxuu soo gudbinayo, ama ha noqdo wax asaga diintaba ka hor imaanayo, ama ha noqdo wax fisqi faafinayo, waxaa leeyahay qofkan talent uu la imaaday, talent uu leeyahay, keep going. in lagu encourage yani qofku waxaa lagu encourage garanayaa, waxaa lagu dhiirigelinayaa inuu fisqiga faafiyo, waa leeyahay waxan waa wax wanaagsan ku soco. dadkan kan sameynayo iyo kan daawanayo oo wixii mataqaanta faalo ka bixinayo dhanka xun oo dhanka mataqaanta wixii kusii dhiirigelinayo, kusii wacyigelinayo, wax farqi isdhamaa ma laha, labadaba waxay ka qayb qaadanayaan fisqiga inuu sii faafo. ma garati waxaas markii sidaan oo hortegi karnaa. sidoo kaleetana qaabkii inoo saameysaa waxay tahay dee waa ku mashquulna waxani, yani nolosheena caadi iska noqoto. suuxi waa soo kacnaa, waxa u hore aan qaadan wuxuu noqonayaa telefonka. yani qof walba midaasi wax weyn uma arko, like nolosheena kamid tahay inaad suuxi soo kacdo, walow xitaa adoo galaas biyo cabin ama aadan tukanin, waxa u hore wuxuu noqonayaa telefonka aad fiiriso, masjidkii xal lagu soo diray notification markii aad sii seexanayso iyo markii aad soo kacaysaba waxa garabkaaga yaala gacanta ku soo telefonkaaga. haddaa meel fadhiisato waa waxa gacanta ku soo telefonkaaga. haddii dhowr qof ay meel wada fadhiyaan, yani inta ay wada sheekaysanayaan, inta telefon isticmaalayaan waxa ka badnaanaysa in telefon isticmaalayaan. ma garatay marka qaabkaas bay inoo saameysay. baahi ay jirto degdeg oo markasta aad u qabto telefoonka inaad fiiriso, aad gacanta ku haysto. waxaa jira waxani kind of addiction oo kale aan ka maarmin oo u baahanahay, si biyaha ugu baahanahay camal ugu baahanahay. sax hadda waxaa sheegtay in xumaantii micnaha isfaafinteedu waxaa moodaa inaan cagsi ku noqonay al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. xumaantii inay noqoto wax lagu tartamo oo la faaniyo oo xiisa badan ay noqoto, qofkii wanaag sheegana ay noqoto in la dhaho qofkan wanaag ahaantii aan loo qiimeyn oo lagu qiimeeyo wax kale u dalleeyahay. ama haddii la dhaho qof waduu u dhaho xumaanta hala dhaafo wanaag hala sameeyo, isaga la jaaj garow adiga waxa ma samaysid, maxaad wanaag noo faraysaa, wixii lagu soo celiyo asagii lagu soo celiyo oo laakiin fariintii uu waday iyo muhiimadii uu ka hadlayay aan la qiimeyn oo la dareen. way dhacdaa inta badan. waa waxyaalaha hadda runtii aad leedahay marka baraha bulshada si u fiirisid, qofka yani xumaha in loo tartamo, sax aad loo bombooniyo, qofka wanaaga la socdayna ama uu sheegi rabay xataa aan u helin awood ah, ama uu xataa uu ku dhiirin karin in wixii wanaaga ahaa inuu gudbiyo, yani inuu ka qajilaad moodaa inuu ka cabsanayo kale. marka waxaa saameyn ba aan ku yeelanayso bulshada iyo bay'ada qofka, environmentka iyo fariimaha markaa hore iyo gadaal u socdo, oo qofkii marba dhinac kale kaga imaanayo. marka way adkaanaysaa qofka inuu ku dhiirado inuu wanaag inuu la yimaado. waxaa ka baaxad badan xumaanta ordaysa, xumaanta socota waa hir wave socdo weeye. marka qofkii hataa hadduu is dhaho xumaanta jooji lafiisu cabsan, isagaa lasoo weerari, asigii ma helayo yani kalsooni oo xataa ku gudbiyo fariimihii wanaagsanaa oo ka dhex gooxayay inuu dadka la wadaago. waa adkaanaysaa. marka waa waqti aan isleeyahay runtii dadka inay feejignaan dheeryahay inay sameeyaan waxyaalaha ay soo bandhigayaan. runtii saa hadda aa sheegtay wanaagiyo maaragtay laga ordo xumaantiina loo ordo. marka qofka inuu
runtii feejignaan uu sameeyo waxaan waa wax lagula xisaabtamayo oo wax adi kaa dhacay hadday wax wanaagsan ay yihiin waa wax adi kuu kordhayo oo ajira oo wanaag iyo khayr ah wixii xumaanana hadday account-kaaga ku jiraan account-ka waa mogtahay waa laba dhinac ama dhinaca khayrkaa badsanaysaa ama dhinaca sharta حتى انت la gaarin ba aakhira iyo xisaabta aakhira waxa marka qaar waxaan isweydiiyaa marka arko gabdhaha Soomaalida ee neekinay isqaawinay sida xun dhaqmaya marka qaar waxaan isweydiiyaa 20 sano kadib 10 sano kadib 30 sano kadib gabadhaas xareeyna gabadh dhasho si u waanin maxay ku dhihi waayo hadhow hadii dhahdo faaxishan iska dhaaf waxan xumaan waaye iyadoo dawlad ruux xisaalad si moogti ila internet waxa ma iloob waxa ku safgaraysan yahay marka waxaan isweydiiyaa aabahan ama wiilkan dhalinyarada ee hadda hawshan sameynaya xumaata wada ama qabiilka caaya ama dadka isku diraya ama faaxishada gudbinaya waxa way ka daba imaanaysaa hadhow like qaasi uu waanay ubadkiisi ama wanaag uu sheego sababtoo hadda xiisadan iyo xamaasadan ku haysa social media inaad dadka aad approval ka hesho ama aad wax xiisa ah soo gudbiso ama lagu jeclaado ama aad fan base yeelato ama aad caan noqoto 10 sano kadib kulamo qumaanayso waa shalay wixii kula qumaanaa maanta in kula qumaanin baa yaa laga yaabaa marka mujtamaceena soo kacaya ciyaalkeeni inteena waxaan dhalo waxay si dhalaan ama waxaan dhalabo 10 sano kadib waxaan u sheegnaa ma garanayno sababtoo khaas ahaan dhalinyarada hadda social media aad u isticmaalaysa ee Soomaalida marka marka qaar waxaan isweydiiyaa hadda gabadhan hadda neekinaysa dhow gabadheeda markay dhasho maxay ku waani doontaa waa diinka ma dhaxlayso waxba ma gudbin karto diinna ma gudbin karto marka mujtamaca noo soo kacaya mujtamaca noo noqonaya marka aad iyo mujtamaca wuxuu noqonayaa yani anaga waan isii darnaanayaan waxaan ugu soo socday hir aan inaba caadi ahayn yaa nugu soo foodlay marka gabadha noocaasa ma gudbi karto wax dhaqan ah wax diin ah wax sooyaal iyo Soomaali wixii lagu yaqaanay cunugay dhasho marka waa saa hore u sheegtay xataa haddii asi uu bareero inuu xumaanta uu sameeyo hooyadii kama celin karto waa ayada soo sameyn jirtay waxaa ku filan hal video oo meeshiida laga soo bixiyo oo adaa sidaa sameyn jiray marka way adkaanaysaa inay xataa ubadkeedii ay maaragtay wanaaga ay farto marka cunuga noocaasa hadday gabadhaa sida hadda u neekanayso oo jirkeeda iibinayso just follow inay hesho ama attention yaro social media inay ka hesho wax fariin aan ay gudbin karin cunugay dhasho marka wax u maqan mala ayadana wax ma sameyn karto oo waxay ku soo beerin karta mala mujtamaciina hadday ka gaari waayaan oo gabadha ay xal u heli waayaan siday yani ay u maareyn lahayd ama waxyaalahan wacyigelin loogu sameyn lahaa bulshadan dhinaceeda way gabeen wiilkaasina wax asxaan ah looma sameyn hooyadiina asxaan uma sameyn bulshadiina uma bareerin inay ka qabtaan xumahaasi hooyadii beri ubadka wanaajin lahayd wax kasta oo hadda aan sameyno wuu naga dab imaan macnaha wax meesha ku baabaa oo iska dhamaanay intii 2022 waxa la sameeyay oo ku dhamaad ma jirto mustaqbalka it will catch up with you shalay waxaan fiirsanay maxay ahayd video aan fiirsanay sargaal ahaan jiray 1980 meeyadii dad laayay oo Soomaali ah yaa shalay Mareykanka lagu qabtay waxa ka daba timid 1980 meeyadii wuxuu sameeyay yaa maanta ka daba timid inta xorb waa laakiin hadda ka timid waa isagoo 60 dhowr sano jira marka hadda waxa sameeynayno oo dhan resultigeeda ama natiijadeedii way naga daba iman at some point ama wanaag bay kugu imanaysaa ama xumaan bay kugu imanaysaa marka wax meesha ku baabaayo intaad sameeyso meesha ku baabaayo ku iloobaysa ma jirto wax kasta oo aan ficil aan sameeyo sound record bulshadeeni Soomaalidu waxaad moodaa in isticmaalka baraha bulshada ee oo dartay la xaqiiq mix loo eego caalamka يعني حماني وناق ويليه صح أو وحني وناق وكيس استعمالان حمانتنا ويكجران أو كم مرنا لكن أنا جو حامو دائن يعني نك حمانتا أوران وير بدلنا هاي مركز يرى أكتب بالشدة الصومالي ودتك أوجو عن سن أما دتك إن بدل لدقيستو لجو حرين جاي ودتك هاي عدد سوق ديو لكن أنا يوم كنت كسالة منها هاي ولا يا عين عمر كل سوق ديان ولا قادني أنا كل بحنا كينان وحنا جو بدن يعني وحنا سامين نقولش ونقول بدن isceebeysiga xanta dagaalka yani qabyaalada iyo mataqaantaa arinkan la yiraahdo in mataqaantaa yani loo qof isku dhagdhagaan oo kale yani waxa ka sameysanahay qaab xamaasad amal wax walba xamaasad yani dhagaheen iyo dareenkeen iyo dhehena jecel in la socono laan baqaano hadii aad u fiirsatay xitaa dadku wax soo gudbiyo
يعني waxay lacag sameeyaan ama waxay saameyn badan helaan markii xamaasad jirto markii laba qof isku dhigan yihiin markii arrin xasaasi ay jirto laba qabiil tartansiinayo wax noocaasi marka ana wax u sameysanahay ama baraha bulshada waxaan u isticmaalaa hab inaan wixii xamaasad leh aan dareenkeeni waqtigeena aan gelino oo mar walba aan la socon wixii soo kordhay mar walba aan la socon wixii isdagaalay dagaalkii dhacay live-ka xalay yani isku qabsaday iska recordka xalay raadi gabdhihoos dagaalay haddana badan marka waa nolol khiyaali ah wax noocaas xamaasad baan ugu badan xamaasadii baan ugu badan yani dhaqankii diintiina oo kasii fogaanayna oo taasna waxa u wacan dadka wax soo gudbinayo oo lagu xiran yahay iyo dadkan ku xiran yihiinba oo macallimiinta u ay ku xiran yihiin waxaa dhihi karaa waa macallin qof aad dhegeysanayso macallinkaaga sababaan ku dhama qofkii macalinka ku ah hadduu xamaasadii hayac soo gudbinayo adigana waxaa noqonaysa hayacdu saameynaya isaguma la mid la noqonaysaa bilcaafiya midda kale waxaa cajiibta oo la yaaba waxaa weeye dhalinyarada soomaalida hadda social media ugu jirta ee inta badan saameynta ku leh haddii ay musiibooyinso waddanka ka dhacaan dhibaato ay dhacaan intay is aroorsadaan isma kaashadaan oo wax kama geystaan abaaraa dhacay waa dhaweyd ma maqal macquul waa laakiin ma maqal iyagoo intay dhan niman aan iskaashanno aan lacag aruurino aan wax samayno aan ummadda u gargaarno laakiin marka ay imaato in qabiil hebel la ataag gareeyo ama shakhs hebel la ceebeeyo waxaad arkaysaa hal mar ay arrintu soo dhacdo qof kasta way u saaran tahay mawduuca u horeeya topigiisa saaran waxaa way heblo oo waxaa lagu sameeya hebel waxaa lagu sameeya mawjada abuurmay oo meel kasta waxaa saaran sawirkii qofkii oo la fadeexinayo laakiin marka uu ciwaanada aan samaysana oo like muuqaal mid la sameeyana ciwaana loo sameeyaa sax qaasatan YouTube ama Facebook yani ciwaanada qaabka u sameeyaan oo kale waa qaab xamaasaysan waa qaab dagaal iyo xamaasad ay ka buuxdo aad ya marka waay maxaan ugu isticmaali lahay qaybta wanaag maxaan arki lahay macnaha dhalinyarada hadday iskaashan lahayd dhihi lahayd waddanka abaara ka dhacday dadku baahi baa loo dhimanayaa hooyaa ilmaheedii oo nool ka tagtay si kuwa ka badbaadiso sabab waay ay kuwa social media dadka Soomaalida haysa ay la daawanay ay u soo saaranayeen hawsha ay uga dhidhin laayeen sababtoo way awoodaan intaasoo kun oo qof ku taxan oo daawanaysa marka ay fadaxa ay sameynayaan marka waxaad moodaa inaan xumaanta oo kaliya u isticmaalnay dabcan uu leeyahay wanaag uu leeyahay dad badan wanaag soo gudbiya culimada ka qayb qaata bariyahan sheekh warsheek TikTok oo Kenyawi masha Allah TikTok ugu daba galay dacwadu ku geeyay marka way jiraan dad badan oo ka soo qayb qaadanay in ay bulshada hafatay in ay wax ka badbaadiyaan saasoo tahay laakiin haddana inta qof ee sheekh Kenyawi oo war TikTok oo ilaahay ka cabsi dhahaya dadka shaagarina way yaryihiin laakiin gabar la soo qaawiyay waxa la loogu talagalay social media in lagu iibiyo markii horeba dad si wanaagsan oo isticmaal way jiraan laakiin waxaad la yaabaysaa ummad dhan saahada aad sheegaysay in abaarihii iyo dadkii dhamaanayo yani bulsho oo aad u bisil aad u nugul asaaskoodii iyo waxyaalaha ay u baahan yihiin xataa aanan haysanin in mujtamacii dhalinyartii la rabay inay maanta ay u gurmadaan ay u fikiraan ay la yimaadaan yani wax dhaxalgal ah oo ummaddan lagu badbaadiyo yani inay ku mashquulsan yihiin waxyaala aanan wax micnahanan u samaynaynin bulshada waxaan la yaabay dhaqamada hadda ku soo kordhay oo walaalkii Sadiiq soo hadda uu ka dhawaajiyay waxaad arkaysaa niman ana waxaan naqaanay gabdhaha in wax sheegaan oo reeraha kala tegay iyo ku isla joogay iyo waxyaalahan familkii qoyska hoose ka hadla laakiin waxaad la yaabaysaa maalmaha hadda soo ziyaaday in nimankii la yaqaanay Soomaali dhaqanna uma lahayn in nin intuu meel soo fariisto reer kala tegay iyo ku isku soo maqan iyo inuu ka hadlo inuu falaanqeeyo sidii gabdhaha yaryarka waxay sameyn jireen aan naqaanay marka nin weyn inuu meel la soo fariisto waxyaalaha kale waa dhaqamada ugubka ah hadda soo kordhay runtii la rabo in wacyigelin laga sameeyo midda abaaraha marka dadkii ma rabaan because wax gadmaya ma ah mana haystaan haddii si kale aan u dhigo ma haystaan awareness ama wacyigelin dadka loo sameeyo of course way ogyihiin inay abaaro jiraan inay dhibaatooyin badan ay jiraan laakiin ma hayaan yani platform looga iibin karo xogtii wax la wadaagi karo oo u gudbin kara dadkii way ka warhayaan laakiin mawjadihii haddaba siday u abuurmaan in loo abuuro oo dadkii ay u soo jeestaan abaarahan soo laalaabanayo oo dadkoodan aan u tashanayn
sanad walba abaar un hadday kula taagnaato waa dhibaato marka waxaa la rabaa si looga baxo waa mujtamac oo dhanaa ka siman marka keliya social media ma mujtamac oo dhan baa waxaa mudda inay ka jiifaan yacni godka qofka muslimka ah god laba mar lagama qaniino abaar haddii sanadii hore ay kugu dhacday sanadda horta tan kaa horeyso inaad u tashataa inaa wax la imaadaa hal abuur inaad la imaadaa saa uga badbaadi lahayd